Bismillahi Rahmaani Rahiim. Soo dhawaada casharada imtixaanaha Easy Beginner Option. Maanta waxaan qaadan doonaa wax loo yaqaano double RSI ayaa loo yaqaanaa. Inshallah si aad noola socoto please fadlan page-keena subscribe saar si adigana ay isku siiyaan casharada dambe oo soo socda. Marka maanta waxaan qaadan doonaa double RSI. Double RSI maxay tahay? RSI waxaa laga soo gaabiyay waa Relative Strength Index. laga soo gaabiyay marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa in aad nala socotaan time periodka waxaan ka dhigan doonaa 10 second oo jadaan falaarta 10 second ka dhigan doonaa timeka oo lagu galay suuqana waxaan ka dhigan doonaa 2 minutes adilaa insha Allah aan isla soconaa ilaa si suuqan markaan u ogaano marka waxaan leenahay aan soo dhigano relative intee ka soo saarnaa relative aan ka saarnaa calaamadaas oo ah indicators meesha ku qoran tahay falaarta ayaa ku dhufanaysaa waxaa ku qoraysaa RSI waa Relative Strength Index waa taas ujeedaan meesha 14 inoo tahay waa baseline-ka overbought macnaheedu maxay tahay waa 70 meesha ugu koreysay suuqan oo buyers-ka ay gaareen oversold dhigana maxay tahay waa meesha 30 macnaheedu maxaa loo dhahay waa meesha ugu hooseysay oo suuqan ay oo laga iibsado waa oo buy sellers-ka iska iibinaya meesha ayaa loo yaqaan marka apply ayaan dhahnaa mar labaad ayaan hadana soo galaynaa RSI ayaan dhahnaa laana waxa hore ay ku sheegay waxaan qaacidada waxa la dhahaa double RSI marka inta meesha 7 awal inoo heedaad waxaan ka dhiganaynaa 50 oo ah overbought meesha ugu hooseyso la gaarsiiyay oversold dhigana waxaan ka dhiganaynaa 50 kale nala socdo insha Allah trade-keena koowaad ayaan bilaabaynaa insha Allah mar walba waxaan dhahay saad u kala xaqiijiso suuqa meesha laga soo celi aan ku dhahay igo inaad dhigato isku day baseline-ka oo aad suuqan aad kaga duuleyso ha noqoto in kalsooni suuqan ku qaba marka waxaan ku galaynaa suuqa maadaama waxaan dhahay 50 uu ka sareeyo suuqa maxaan dhahnay 2 minutes oo waxaan ku galaynaa oo buy soo aragtaanba 50 waa kaasaa falaarta igala socda waana aan dhahnay markuu ka sareeyo 50-ga waxaan ku galaynaa 2 minutes oo buy ku gali doona aan aragna insha Allah trade-ka labaadaan bilaabayna asigana aan analyze garayno hadda suuqani meeshaan in laga celiyo u badan tahay waa dhiganaynaa iyadana insha Allah aan u ogaan in meeshaas laga celiyo aan dhiganaynaa support-keena dhiganaynaa hadii supportku waxaa la rabaa inuu kuu noqdo calaamad suuqaasi jiha u yeelaa laga rabaa inuu kuu noqdo oo noqoto meeshaas meel laga celiyo sax inay tahay marka si aad u aragtay hadda aragtaanba meeshaas waa suuq laga celiyo meeshaas waxaan isku dayaynaa marka uu noo waafaqo shuruudaheena oo ah in uu overbought uu aado oo 50gaas uu ka sarmaro buy ayaan u gali doonaa ilaa hadda weli shuruudaheena ma waafaqin waan sugaynaa duleedna markuu waafaqo laakiinse waa fara raacda sababta mar walbana waxaa la kuu sheegay suuqyada aad galaysaan ha noqdo suuq buy oo socday oo soo daatay oo sell soo daatay ama suuq muxuu ahaa sell ku socday oo buy rabay sida hadda kan oo kale sell badan ku socday in badan marka hadda wuxuu rabaa inuu u jihaysto buy u jihaysto rabaa insha Allah ka aan isla socono dad idinka aragtaanba arba wax aad indhihiina ku aragtaan oo macquula oo adiga lacag ka sameeyaan marka waxaa leenahay minute ayaan ku galaynaa ayaan u raacayna insha Allah ala soo oo trade-ka labaadaan galnaa aan ku galnay waxaan dhahay RSI-gaas falaarta hadda ujeedaan 50 uu ka sareeyaa 50 ka sareeyaa maxaa dhahay mar walba kor u raac waxaan ku gashaa suuqa 3 minutes-ka ugu badan 2 minutes ku galaysaa ama 2 minutes ama 3 minutes mid markaasi aad leedahay suuqa ku analyze garayso in suuqaasi hadduu wax badan u dhimayaa inaad suuqaasi aad ku gasho marka insha Allah aan aragno trade-ka koowaad waa u socdaa trade-ka labaad hadda aan galnay aan aragno insha Allah meesha ku dhamaadaan
walbo oo waxay u baahan tahay isku day please haddaad tahay cashirka ku celcesh oo nafsadaada ku qanci inaad adiga waxaan isbari karto oo aad kala socon karto aniga waxaan ay kugu bareen waxa waa ilaahay dartiis لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذا تمرنا وح شكويا إيوه ما هذا علينا واحد يبرنا إلهي درتيس فضلا هذه إن سبرت خذ واحد نقف قش ملها قف بقى أركان سوق ما أنت العكس سمين يا أركيسد وقف ضيس سمي وقف نحوها بدن اسكت إنه محاولة بدن سمي قف مركم محاولة سمي إن بدن اسكت هي إن أو سوق أصير العكس سمين هذا أركان تريد كواد وين قرناي أو قول أيكم أمال إن شاء الله مركا كلسوني سوق أنا كل شيء لو باين سوق مركا جاي سوق خسارة يفعل سوق لكن فإذا أنا قد متبادن أو كبادن فيه هرا مركا تريد كواد وين قرناي تريد كلامنا واسعد لكن عن أرجع سنة شوف هذا تريد سدحان رأسنا إن شاء الله سوق أرض وضعنا يدقنا شو إلى الله يسترس سوق عن جهة اللي هي وأنا رست سوق تجن أو شروطين قوة فقطين مرة البو سوق عن عادي أد الله يسترس جهة وقوة شو أي كحرنتا إن أدقنا عدد وقوة شادن أي كحرنتا عم يقول درجات مركز أبجدان باتريت الواد خلاص أي قصة عذاب وبدين هاي إن شاء الله ما مركز الله سكش إنها ترى على اللي محلص كأوتر سوقا وحلو سميه هاي إن هذا لص يفائدة لو مثل عاد كسبش أما فائدة أما لص لكن وين نقطة سوق عاد سو شقتي كرت أو كنت سنة فقط تريد كود وين قلنا أو جدا تريد كلام ما كسر لص أيضا مركز وحنا قلنا تريد كله إن شاء الله نحاول كنا سمين دونا وأنا أسكت دونا إن شاء الله إن نقول في هذا سوق ولاية المال سوقان إيشا إن بدنا لقى عليو إجهاي عندنا ناس عادين سبورت جاني في رتستين تيجينا عندنا الناس جهة السوق عملوا بعض ولا صعد أو عادينا هذا خلق إيو على إسكو جرين مركا عنكم بينا سوقان إن بدنا سوق لعليو وبرنا أو فيروس يسلس مقالين لكن waxaan isku daynaa insha Allah in aanay jihadiisa oo ugu dambayso raac suuqan oo kale overboardkii aad u fiid ugu sareeyaa waxaan isku dayaynaa inaan diineed oo raacno oo baay insha Allah
suuq maanta waa iska OTC waxa waaye waa suuq aad loo xukumi karo maaha laakiin waxaan isku dayaynaa insha Allah inaan inta karaankeena iyo khibradda u lehna suuqa inaan ku maareyno insha Allah. Trade labaad contract waxa waaye waa win contract waxaan tahay waxaan samayn doonaa trade saddexaad hadda noo socdo wallah ka wardoonaa
ujeedaan tradeekii saddexaad oo waan garanay one trade loss iyo laba trade ujeedaan GBP USD oo iyadan aan waan garanay tradeeka labaad oo asna aan loss ku dhacnay iyo trade saddexaad oo weyn aan waan garanay waaye marka aan galnay saddex trade tradeka afraad hadda noo socdo insha Allah aan aragna asna meesha ku dhamaado July. sida aad aragtaan tradeekii afraad waa weyn garanay insha Allah maanta intaan iska ekaysanayna duleedna aragtaan USD CHF waa ka qabsanay euro GBP na waa ka qabsanay AUD CAD loss ayaan ku dhacnay GBP USD na waa ka qabsanay marka almost 3 win 1 loss waa insha Allah billahi tawfiiq halkaas maanta ku gabagabaysanayna 10 kana duleed. Assalaamu calaykum.